magaalada Minneapolis waxaa markii ugu horeysay laga hirgeliyay xarun ay Soomaalidu maamusho oo lagu daryeelo amaba talooyin lagu siiyo haweenka la kulma rabshadaha qoyska dhexdiisa ka dhaca ee keena gacan ka hadalka iyo dhibaatooyinka kale. Maxamuud Mascade ayaa warbixintan Minnesota nooga soo diray. halkani waa qaybta diiwaangelinta iyo soo dhaweynta ee hoyga Farxiya House oo dhawaan laga hirgeliyay gobolka Minnesota. hoygan ayaa waxaa loogu talagalay inay si ku meel gaar ah ugu noolaadaan haweenka iyo gabdhaha ay soo gaaraan dhibaatooyinka laga dhaxlo xiriirka nololeed ee dhex mara laba qof oo lab iyo dhadiga haba ugu badnaadaan haweenka la qabo ee lamaanahooda dhib uga yimaado sida gacanka hadalka iyo wixii la mida. hoyga Farxiya House oo ah kii nuuciisa ee Soomaalidu maamusho gobolka Minnesota laga hirgeliyo ayaan dhawaan booqanay si aan wax uga ogaano. sida uu qabo sharciga gobolka Minnesota iyo kan dalkan Mareykankaba lama ogola in dadka goobahan oo kale lagu xanaaniyo xogtooda la bixiyo ama ay warbaahinta la hadlaan. kaamirooyinkana lama ogola inay dhaafaan qaybta diiwaangelinta iyo soo dhaweynta ee dhismaha. hase ahaatee waxaa howlaha ka socda hoyga Farxiya House inooga warantay maamulaha hoyga Nadiifo Maxamed Cusmaan oo xafiiskeeda nagu qaabishay. shelterka waxaa loogu talagalay dumarka ama haweenka dhibaatooyinka qoyska soo qabsadaan inay helaan meel ay tagaan at the same time ay heli karaan wixii dhaqankooda iyo caadadoodii ayagoo waajibaadkoodii gudanayo meel ay tegi karaan ay ku nasan karaan si ay u fikiraan oo qoyskii dhibaatadii ka dhex dhacday xal loogu helo. Nadiifo Maxamed Cusmaan waxay xukuumaddii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo noqotay wasiirka howlaha guud iyo dib u dhiska. sidoo kalena waxay muddo dheer ka mid ahayd hogaamiyaasha jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Nadiifo oo ka hadlaysay haweenka xaruntooda soo gaara ayaa xustay inay gacan degdeg u fidiyaan kana kaalmeeyaan dhibanayaasha sidii ay durba ugu soo kabsan lahaayeen. marka u horeyso qofku waa la soo dhaweeyaa soo dhaweynaa loo sameeyaa meeloo seexdo iyo waxaa la siiyaa deganaansho kabacdi waxaa waraysiyaa lala yeeshaa oo qof advocate loo assign gareeyaa oo asaga qofkaas ku shaqo leh meelaha laga kaalmeyn karo inaan la xiriirino arrintaasay u xalisanto. annaga ma nihiin sida sheltaradoo kale waxaan isku daynaa inaan sameyno wax dhaqankeena iyo diinteena waafaqsan. inkastoo hoygan uu yahay mid loogu talagalay in si gooniya gacan loogu siiyo haweenka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka qoyska ee gacanka hadalka keena ay soo gaaraan, haddana albaabadu kama xirna dadkaan Soomaalida ahayn ee dhibaatooyinkaasi oo kale ay la soo gudboonaadaan, siday sharaxayso Farxiya Khaliif oo ah aasaasaha hoyga Farxiya House. anaga qof aan celinayno ma jirto. irideena qofkii soo garaaco oo hooyo Soomaaliyeed ah ama ha ahaato hooyo nooc walba ha ahaato oo nin dhaqan walba ha ahaato, haddaan hayno sariir furan ama meelaan ku hayn karno waan soo dhaweynaynaa. haddii maanta qof aan Soomaali ahayn noo imaadana oo qofka Soomaalidana aanan jirin waan soo dhaweynaynaa. laakiin qofku waa in hadduu violence gurigiisa kaga soo baxay oo kale guriga laga soo buriyey. khilaafka qoyska ee gacanka hadalka keena ayaa dalkan Mareykanka waxaa la sheegaa in saddexdii haweenaba midkood uu dhibane u yahay. Soomaalida oo ka mid ah bulshooyinka dhawaan soo degay dalkan Mareykanka ayaa laftoodu ka mid ah dadka dhibanayaasha u ah qalalaasaha qoyska dhexdiisa. walow number sugan oo laga cabir qaadan karo aan lahaynin, haddana dadka arrimaha qoyska u dhuundaloola ayaa rumaysan in dhibaatooyinka keena qalalaasaha qoysku ay salka ku hayaan dhaqaale yari ama jahawareer laga dhaxlo dhaqanka dalkan oo ka duwankii Soomaaliya. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.